lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheegi ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqi oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawadee baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay maydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka mu'minku jannadiisii ka daawanaya sida innakuba aaladdan yare imminka aan haysaneen moobeelka ijaabadda aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda amriika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisi iyo naciimtiisi iyo xurulcayntiisa markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha mu'minku ku seexda weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa le'anna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhulmawt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiihaa nasab wamaa hum minhaa bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaadhayaa ma jirto jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha mu'minku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون واك إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه كل شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونا لأن حق إلهي بالله سؤرين دونا مرقاس قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيي waan jiifnay waan hurudnay hurdada maxaa naga soo kiciyey buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rusushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii lanoo yaboohay yowma alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya nolosha adduunyadu wajacalna alleyla waannahaara aayatayn وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلهي يدي آية الليل آية النهار نولشان الدنيا أن كنا لهي ومالين يا هبين مالين دينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين يا هبين قبرك هدي لكو ديغنا وهبين كليا
habeenkaasuu nebigu noo sheegu yidhi qabrigu waa laba mid weeyaan amaa waa rawda min riyaadi aljanna imaa xufratu min xufari innaar mu'minkiina beerbeeraha jannada ka mida looga dhigayaa gaalkiina waxaa looga dhigayaa godgododka naarta ka mida looga dhigayaa ninna u hurdaa oo 70 sane adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa joogadeennaa wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamulbarsakh bay ku jiraan inna way hurdaa way nasanaysaa oo waxaa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaane way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo unbay qabriga ka soo bixi doonaan laysa calaa ahli laa ilaaha ila allah waxshatun fii qubuurihim walaa xasratun fii nushuurihim وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيد لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسرد الندامة murug geliya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan يوم القيامة مالين تسرجوجا ويوم قرآنك يوم بوشيغا هبين مشيغين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة habeen ma maqlaysid habeen ka doondon waa kaas qiyaamaha markuu ilaahay ka warramayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin kaliya wa fii yawmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana yawma idin tu'raduun laa takhfaa minkum khaafiyah yawma tabyaddu wujuuhun wa taswaddu wujuuh yawma ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala yawmkaasina qur-aanka ilaahay noogu sheegay waa 50 kun oo sannadood ibnu cabbaas radiyallaahu canhuma mufasirkii qur-aanka wuxuu ku fasiruu yidhi 40 kun oo sano waa la joogi 10 kun oo sanona xisaabtaa ku dhammaani doonta buu yidhi 40 kun oo sano ayaa sidaa loo taagnaan doonaa 10 kun oo sanona xisaabtaa ku dhammaan doonta nin caraabi oo reer baadiya ayaa sara kacoo yidhi yaa rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu yidhi ilaahay baa xisaabi doona rabbigaa xisaabi doona markaa ninkii caraabiga intuu sii jeestay buu yidhi najownaa warabbi alkacba kacbada rabbigayga ayaa ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabad gallay buu yidhi markaa buu nebigu yidhi soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yidhi balii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi ma cid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim